السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قارئة وين سلام من بدون كجوكتان ولكن شاف جورة مركلة يهم مقال عصب سكسون نقشة وناكسن عويه مقال حساسية دقدقة أرين لك حماده أو كو تمادي دردر ميديا كان كاسو سومالي بدن كده يتقانو حسن توب لها oo hawada laga saaray yaa ka saaray hawada yaa si ka dambeeyay arintaas in hawada laga saaray maxay ku imaatay kulli arintaas kama hayo faahfaahin dhameystiran laakiin dad badan oo ka soo hadlay jiro YouTube ka channel badan oo ka soo hadlay oo waaweyn jiro channelkaasna wuxuu ahaa channelka ugu muuqaal dhigista badan maalinkii markii la dhaho Soomaalida waa channel maalinkii 5 muuqaal camal soo tuuri jiray 6 muuqaal soo dhigi jiray meelahaas ilaa 4 inta u dhaxayso marka aad uga xumahay aniga ahaan ka shaafi in arintaas ay ku dhacdo bariye dad badan haba ka aaminsanaadaan wax qaldan dad badanna wax fiican ka aaminsanaadaan laakiin bariye ugu dambeeyay wuxuu soo gudbin jiray waxyaabo fiican dad darbiga ka soo wadi jiray runaantii waa arin lagu farxo asaga wax walba qaab walba ku raadiyo fiisa ku raadiye ilan shaqo qabanaya fiisa doo ku helo ma dhibay leedahay qof nool oo nolosha ka dhacana uu ku soo celiyo noloshiisii de maahan wax oo maanta la dhihi karo waa wax qaldan wixii hore uu qaban jiray iska dhaaf hadda shaqada uu hayay aniga ahaan aan ku taageerayay aadan uga xumaay runtii yaa ka saaray waa sheekada yaa hawada ka saaray waxa looga shakisan yahay nidaamiye oo mar dhow ka tagay durdur media sida la sheegayo laakiin lama shaacin inuu ka tagay oo cid maqashayna ma jiro dadkii xogta hayay meelahaas la joogay ma ogi marka hadda arintu waxay maraysaa xabsi in uu tago Xasan Toob dadkani dacweeyo maxkamad iyo la sii aado bal ila dhageysta Xasan Toob oo la weydiiyay arintan wuxuu ka dhahay laakiin qofka shakhsiga maanta lagu tuhmayo in dhaawac uu geysto durdur media waa nidaamiye right nidaamiye waaye isaga tuhmayna hadda saldhigaan tagnay maxkamadii aan noo dhiman hadeeni iyo wixii hayna soo anjabaada uu noo geystay isaga wuxuu ka xumaaday shaqaalaha cusub hore laga qaatay lugeel iyo waxa la shaqeeyay baana balbalaar sidaas oo wada jeedaan uu uga hadlay arinta uu u sheegay iyo dadkaasi wixii uu la mari lahaay runaantii horta aad uga xunnahay in ay arintaasi ku dhacdo durdur media arin laga naxo waay in channel lagu soo rafaadayay muddo dheer waqti juhdi la soo galiyay muddo yar lagula wareego waa arin laga naxo aadan uga xunnahay waan uga tacsiyeynaa walaalkeen Xasan Toob waxaan rajaynaynaa in wixiisa Ilaahay dib ugu soo celsho maadaama uu shaqo fiican ku hayay bal dad qaar ka hadlay sida barbaarta media show malaha barbaarta media bal aan yar dhageysano dadka qaar waxay ka dhaheen sida barbaarta media Najiib oo ka hadlay arinkaas iyo wuxuu ka yiri ila daawada kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha ku xiran barbaarta media markale waxaan idin leenahay kulan wacan oo wanaagsan waxaan daawadayaal markaa aan eegi doonaa sirta iyo sidoo kale arinta ka dambaysa in Xasan Toob YouTube-kiisa durdur media habadin laga saaro dhabaantii adaynu nahay bahda barbaarta media falkaasi lagula dhaqaaqay Xasan Toob aad baan ugu xunnahay in markaasi wajigaba xaasi uu la kulmay maadaama YouTube-kaas uu ka galay juhdi fara badan waqti fara badan markaas uu galiyay lana markaas hubo in badan inuu yahay YouTube ugu badan ee soo galin jiray muuqaalada ugu badan ee dhinaca YouTube-leeda oo dhami Soomaalida oo YouTube-leeda marka la fiiriyo waa ninka ugu badnaa isaga ayuu hadaba waxa dhacday in YouTube-kii xalay Xasan Toob wuxuu soo galay muuqaaladii in uu si official ah oo rasmi u xaqiijiyay inay ka tageen nidaamiye iyo sidoo kale abtidoon kadib inta markay tageen waxa dhacday in YouTube-kii guud ahaanba habada markaas laga bixiyay warar qaar ayaa sheegay in Xasan Toob haatan uu markaas wado dacwad ee ka dhana dadka markaas uu tuunsan yahay uu markaa doonay in maxkamad uu markaas la koro asxaabta qaaliga sida u jeedaan waa sidaas durdur media arinta ku dhacday channelka daaraysidna hadda waa helaysaa channelku ku soo baxaya marka ku dhufatid wax muuqaala ma helaysid calaamada profile-kana meesha calaamadaas u dhaxfuushay marka arina aad uga xumaanay in kasto waxba aan ka qaban karin oo u tacsiinina
raggaasna kolley maxkamadu la sii tiigsanaya saan u filayo. arrin kalena way jirtay gudoomiyaha Durdur Media in uu bariyo ka hor ka tagay wixii jiro ku kalifan ma aqaano muuqaal Durdur Media uu soo dhigay Xasan Toobna uu jira arrintaas oo ka hadlay sida la sheegayo dad badan oo kalena way wareysteen oo YouTube-leyda Soomaalida ka mida sida Nuur Weershe maalaha ma garanay asna wuu wareystay gudoomiyaha Durdur Media ee ka tagay iyo nidaamii oo ka tagay mar dhow asna wixii oo kulmay channelkana kolley nidaamiyad zaid loogu tuhmaya maadaama ninkaasi uu jiro wadan kale uusan la joogin halka marka kolley waa nidaamiye san is dhihi karno annaga iyo sida Xasan Toob uu ka dhawaajiyay oo dadka uu tuhumka uga jiro qofka uu zaid u tuhmayo waa nidaamiye oo ahaa qofka ugu dhow muddadii ugu dambeysay dadka la soo shaqeeyay Durdur Media. asxaabta qaaliga muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay inta ku kulmi doono muuqaalka xiga waanigoo idin leh sidaas iyo nabad diin.